dadka ay u soo jeedinaysid aad dhehaysid wiila saan waay shakhsiyadeeda way xun tahay madaxweynaha u gaftay aniga madaxda ma caayin caanimo haday tahayna caanimo hadaa soo caan saartaba weligeeda la soo qaban jiray alis dadka la isku baran jiray oo caan la iska dhigi jiray laakiin mid la isku sheeganayo anima arkin asxaabay ugu horreyn soo dhawaada sad aragtaanba waa wiilo oo soo fadhiisatay oo u jawaabaysa baabajey gabadhan uu ku qaldan yahay jaanis ayuu ku raadinayay baan odhan karnaa bal qaabka ay ugu jawaabtay markaana wiilo bal aynu daawasho wanaagsan aynu daawano bal idinka insha allah commentiga kusoo qori doona jiifi waa saacadan ama xanuunsan igu kalifay inaan ka hadlo mataqaana qasab igu noqotay nin aan ka joogi waayey aan jiifi waayey arabaa inaan ka hadlo runtii saaxiibna ma dhihi kari kulley waa saaxiibkayga uu ahaay ani kulley saaxiib baa u arkay laakiin isaga saaxiib iga meesha ani geystay ma geysanin waxaan rabaa baabajey inaan jawaabo runtii wax oo la yaab ila noqotay video uu isoo duubay uu maanta usoo dhigay maanta dhan waa xanuunsanahay aada uga gaabsaday laakiin waxaa ka joogi waayo noqotay waxaan rabaa baabajey inaan laba eray inaan dhahaa rabaa horta kaama filaynin meesha anigu geystay maada geysanin runtii isma dheheynin adduunka hadduu kaasoo jeesto meel baabajey kaasoo horjeesanayo isma dheheynin saaxiibtinimadana taas ma umaleyneynin anoo haysta gabdho aa saaxiib ka dhigan karo aada haddana saaxiib kaa dhigtay saaxiib ay ahayd wax kasta ay ahayd walaal ay ahayd garab ay ahayd maanta inaa mataqaana meeshii dadkii aad iga xali lahayd aad dhihi lahayd war gabadha halaga leexdo ku ximaamada yaa inaa mataqaana adne toosh intaa iga daba qaadatida igu soo ifisid kaama filayna horta taasna waxay ila noqoto wax la yaab badan waana midda kaliftay inaa mataqaana oo hadda horta muuqaalkana kuusoo duubo horta saaxiibnida kuu sheegaya baabajey mawduuc waxaa jira horta labadan biri oo raaligelina ka bixiyay tiktokeyga aa dhigay taas horta meeshaas ii dhigay ani fikirkeyga ka hadlo qof kastana fikir uu haystaa isagana wuxuu iiga dhigay sheekada qabiil inaa ani mataqaanaa ka waday qabiil ka hadlay uu iiga dhigay waxaasna wax jira ma ahan soomaaliya horta runta fiican aniga horta mawduucaas maalin hore ka hadlay tiktokeygaan soo dhigay anoo idinku raaligelinayo marka oo mataqaana idin raaligelinayana igama ahayn cabsiya cabsanayo igama ahayn mataqaana wax oo mataqaana just waxa iga ahayd dadka aad jeceshahay dadka ku jecel maadaama qof social media ku jira dadka ku jecel oo kaaga xanaaqeen hadalkaas xamaasadaan iga keentay runta haddaa ka hadlo anoo xamaasadaysan maadaama aan mataqaana ani xasan sheekh maxamuud aan aada u taageerayay maadaama aan farmaajo taageersanaynin saas darteeda iga ahayd qabiil igama ahayn oo ilaahay igu ogyahay maadaama ani madaxweynaha ani aa jeclaay oo 5 sano ka hor runta ana hadaa runta ka hadlo ani horta farmaajo maana taageersanin ani ilaaha ka baqa qof binaadam kama baqaayay maadaama ani farmaajo taageer sida hadartaan baa idinkaba oo farmaajo u taageersantihiin ana u taageersaneen ama taqaan xasan sheekh maxamuud taageeri jiray saas darteeda aa keentay inaa maalin kasta baaldego runta taasna raaligelinaaba ka bixiyeybo raaligelintana ma ahan cabsiya inaa u bixiyaa u maleynina just aan raaligelinta waxaa maadaama dad ay dhaheen wiilo waa ku jecleynay laakiin kaama filayn maadaama ay dhahdeen saas darteeda usoo bixi jeceel idinkii idin qabay iga ahayd igama ahayn qabiil ahaan igama ahayn qabiilna kama hadlin horta runta haddaa ka hadlo ana qabiil kama hadlin gabar qabiilna ma ihi gabar qarana ahay ani fikradeedana dhiibeen horta siyaasadna ani waxba kama ogi waxaasna ani gabara ka ahay mideeda kale waxaa rabaa ninkan igu jeesjeesaayo dadkii igu soo jeedinayo oo dhahayo mataqaanaa wiilasaan waa qof xun waaye anaa soo caan bixiyey nin waxaa tahay meesha kaafila waa kasoo gudubtay ninnimadii haddana waa kasoo gudubtay adoo nin rag ay igu jeesjeestay dadkiina igu sii jeedisay toosh igu sii iftiinisay meesha ka dhihi lahayd wardadoo ma tahay gabadhaan iska daaya mataqaanaa saaxiibadeeda haddii qaldantay cimaamada mataqaana waxaas waa iska dhaafa mataqaana iska daaya meesha ka dhihi lahayd mataqaan dadkii igu soo jeedisay welibana hadala jees ay igu soo dhahday wiilo anaa kusoo caan bixiyey maalinta ani adi oo social media horta before ma ogiyo codkaaga dadka aqoonin laakiin youtube-ka maalinta furtay habeenkii waan xasuustaa dadkana way taaban karaan video ugu horey baabajey soo geliyay daawada marba waxyaabo badan inaan ka hadlo caanimo haday tahayna caanimo hadaa soo caan saartaba weligeeda la soo qaban jiray alis dadka la isku baran jiray oo caan la iska dhigi jiray laakiin mid la isku sheeganayo ani ma arkin adiga ka hor
taas waa mid waxay dhahday qof shaqsiyadeeda oo xun tahay horta taas ilaahay ka cafiyo beenna waa mataqaana ani hadda qof xun ahay fiidiyoyaal waxaa yaalaan ay ugu ammaanaysid ay dhahaysid wiiloy hataa qofka wax walba mataqaanaya oo dadka iiga dhow wax walbana ii sameeyay ninkii naagta dhahaysaa ahay ma fahamtani oo intaasoo dhanna aa u xeenaysaa ahay qof xun haddahay markaas xumaan lahaa 2 sano ku dhawaada social media ku jira 2 sano ku jirana ma aragtay ya ani markaas maalin walbana jidada iska qabsan lahaynay maalin walba meelaha lagu qabsan lahaa maalin walbana wala xaqgalna markaas aanina xumaan lahaa hadda qof xun ahay dadkana way arki baabaji horta yaa tahay xasinimo iyo xumaan leh qofka laga soo gaaraday waa saaxiib ma fahamtay xasinimo iyo xumaan qofka laga soo gaaraday waay marka waxa ku dhihi lahaa ani kulli afka shalay kugu amaanayna kugu waxay marabi runtii aad waa tagtaa ma fahamtay waana qaldan tahay marka waxa ku leeyahay aniga intaan caynin horta adiga isfiiri Soomaali waxay dhahdeen baanyar dabadiisu ma u jeedee dabadada ay ku diimaa taada fiiri horta adi horta see tahay ani horta gabaraabe gabarna ceeb ma lahane adiga nin rag horta dib iskugu noqo dumarkan aala tirsanaysidna iska daa ani waxa ahay naagta markuu qof xitaa erey xun ka sheego naagta ku damqanaysaa ahay waan ogtahay taas ilaahayna way ogyahay ma fahamtay ismana dhaheen baabaji maanta xasuuq wax u dhaw xataa kugu sameynaa markii qof erey ku dhaho runtii aad uga xanaaqi jira ugu gubin jira dhigi jira alla dadkan yaa ka celiya wiilka ma fahamtay marka ani waxa ahay naagta ku waxan markii lagu erey xun lagu dhaho naagta ka damqan jirta ahay marka qalad ku socotidne naagta ku dhihi jirtay abuu sameynina ahay oo ka fikiri jirtay ma fahamtay laakiin maanta meesha ku geystay iyo meesha ay geysatay waa laba mid marka asxaabteeda intaada waxaan aqsanahay maroo videogeena ku dheeraado waa salaamaya aad ma santiin walaalahayga waa idin jeclahay inkana dadkay soo caynayaan u xireen iska dhahayaan waxana dunyaba waa laga tagayaa qofaada waxba ka galabsanin qofaan ku aflagaadeerin hebel ma taageeri leedahay ani qofna ma caayin qofna ma gordaroonin intaasna ma taqaanta wax qaladna ma qof fikirkiisu ka hadlay hadii qalad tahay raali gelina ka bixiyay ma fahamteen ma aha wax weyn dadkan soo